maamulka gobolka Karkaar iyo madax ka tirsan maamulka Puntland ayaa waxa ay hambalyo ku aadan kowda bisha Luulyo u direen shacbiga Soomaaliyeed. warbixintani waxa magaalada Qardho nooga soo diray wariyahayaga Maxamuud Nadiif Shire. iyadoo ay maanta tahay kowda Luulyo oo ku beegan 56 sano guuradii ka soo wareegatay markii ay midoobeen gobolada waqooyi iyo koonfureed ee Soomaaliya isla markaana lagu dhawaaqay midowga Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa goobo tiro badan oo ku yaala gudaha dalka iyo dibaddiisaba lagu qabtay munaasabado kala duwan oo lagu waaweynayo maalintaasi. magaalada Qardho oo kamid ah magaalooyinka waaweyn ee Puntland ayaysan jirin munaasabad lagu weyneenayay maalintaasi oo lagu qabtay marka laga reebo qaar kamid ah maamulka iyo mas'uuliyiinta oo la hadlay qaar kamid ah warbaahinta isla markaana hambaliyada la wadaagay ummadda Soomaaliyeed munaasabada kowda Luulyo awgeed. taliyaha qaybta gobolka Axmed Muuse Yuusuf Shaqanaf iyo gudoomiyaha gobolka ayaa kamid ahaa mas'uuliyiintii maanta hambaliyada u diray dhammaan ummadda Soomaaliyeed munaasabada kowda Luulyo awgeed. kowda Luulyo maanta xorada la qabto Soomaaliya ka xorada gumaysiga Soomaaliya waxaan leeyahay maanta ilaahay barwaaqo bulsho ahlu gaarsiiyo nabad iyo khayr Allah inuu gaarsiiyo waan leenahay. kowda Luulyo oo ku beegan maalintii xornimada Soomaaliya iyo midowga gobolladii waqooyi iyo koonfur Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo baan leeyahay waxaan u hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogto waana maalin xusid mudan xaqiiqdii Soomaaliyana ku weyn ilaahna waxa ka rajeynaya hadii wax yar si ina ka noqdeen ka leeceen in ilaahay qarnamadii Soomaaliya iyo midnimadeedii iyo sharafteedii iyo iska karaamadeedii ee u soo celiyo way haddana way leedahay xaqiiqdii maalintaas waa maalin taariikhiya waa maalin ummadda Soomaaliyeed ku weyn. wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland ayaa dhankiisa sidoo kale hambalyo u diray ummadda Soomaaliyeed isagoo Ilaahay uga baryay inuu dib ugu soo cesho qarannimadii Soomaaliya ay ku taamaysay 22 sano ee dalku burburka ku jiray ka hor. inta labaad maanta waa bisha Luulyo kowdeedii waxaan iyadana u hambalyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogtee maalintii gobonimada Soomaaliya iyo isku darka Soomaaliya inaynu u hambalyeynaya ilaahay inuu gaarsiiyo sanadkiisa bashbash barwaaqo iyo inaan maxaan ku raahdaa maanta aan la qaybsano farxadda iyo dabaaldegaas. qaar kamid ah shacabka ayaa dhankooda hambaliyada u diray ummadda Soomaaliyeed iyagoo tilmaamay muhiimadda ay leedahay maalintan qaran ee kowda Luulyo. waxaan hambalyeynaya shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan maalinta isku darka gobolada waqooyi iyo gobolada koonfureed Soomaaliya kowda Luulyo oo ah maalin qiimo weyn u fadhida qof waxaan xasuustaa abwaan Soomaaliyeed oo maalintii calanka la saarayay aan filayay calan yahow walhanaya adan ku waramayay calan yahow walhanaya adan ku waramayay nin waraasadiisii gabto weeran baa tahay muddo maanta inay muuqato nin waraasadiisii gabto weeran baa tahay wadankana dhibaatada ka taagan weyn ognahay waxaan oran lahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka saaro ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jirto. Maxamuud Nadiif Shire, Somali Channel TV, magaalada Qardho.